xalay yar saaxiibkii lagu magacaabo wariyaha Najiib ayaa wuxuu igu yiri mar aan video YouTube duubeynay inta Turkiga joogtay maxaa ku la yaabnaa markaas waxa igu soo dhacday habeen dhow hadda xaafadda aan deganahay aan Istanbul ka deganahay ayaan ka soo baxay ma aan sheegin oo waan ka yara gaabiyay laakiin ilaa laanka way heesanay kaga sheekay qisadaasoo waan soo baxay marka meesha aan rabay iyo xaafadda waxay isku jireen only 10 minutes ama 9 minutes meelahaas oo kale waa iska yar lagu baxsanayo waa iska yar lugay markaas waxa dhacday meel luuqba oo adiga laba darbi dhexdooda waxa ka soo baxday dhanka laamiga ku soo dhacday gabar Soomaaliyeed oo weynaysa deetana aad u haraasan gabadhiina way dhacdo dhulkay ku dhacday way suuxday Turkistiyo dhanba marka waan u jeedaayo koraan uga jeedaa Turkistiyo dhan ku soo xoontay oo dul imaaday waxa dhacday adiga gabadha oo meel yar adiga laba tilaabo saddex tilaabo amal ay jirtay laakiin meesha ku dhacday waxay meel yar oo dadka ay ku sugaan basaska ama tagaasida marka xaafado u dhow laamiga ka gadaalay gabadha ka soo baxday gabadhi marka waan dareemayay Soomaali tahay qofka Soomaaliga kuma gambanaya mood waa ku ordo gabadhi oo u tagay waxa dhacday inaan gabadhi qabto maadaama dhulka ay ku dhacday dadkaana janibtaan ay dul taagan yihiin wax naxariis oo toosna aan loo muujinay ilaa booliis ilaayo ambulance loogu wacmaahane marka meesha la birkun mu orin laamiga ku dhacday marka gabadhi waa qabtay madaxan u celiyay jilbahayga marka waxa uu saaray madaxeeda maadaama dhulka ay taalay adiga daqiiqada ma ka soo wareeginba ayadoo meesha ambulance la wacayo askartii wixii la wacayo oo gabadhina aniga madaxeeda qabta ku haayo aan ay u neeftuurayso ayaa waxa dhacday bismillaah waxa dhulay shooba gabadha waxa isdagaaleen ee guriga dhexdiisa isku dagaaleen laamiga u dhawaa ninkeeda aad isku dagaaleen way ka soo baxsatay waan way xakameyn waayeen kolba dagaalkooda xakameyn waayeen sidii ku soo oroday way madax qaawnay ee gabadha dhabta markaan ku haynay soo orday ninkii ay imaaday baaqama guriga ku soo xirtay mooy adiga waxa dhacday ninkii orday inuu imaaday oo dadkii cadaanka ka soo dhex baxay aniga shaar yar oo wato saas alle ii qabtay waa horta dhulka liigu jiida halkaas liigu jiida waaya waxa qofku waan kararo waan fiiri markaas dadkaan Turkistaan qofka qof markuu caawinayo kale inay wada naxariistaan hadana marqaatiyaan meesha xaad u yihiin rag kale waaweyn ama istaagnayo Turkiyo ninka jiiday ee gabadh iga jiiday waxa arka hal mar in la dafay 10 nin lagu garaaco 10 nin laga caylay odaygi booliis aniga marka waan link waa liga fujiyay dagaal lagu boobsiyay adiga waa taqaana meel dadna jeedaan waxayaan qofka muxuu ku dhacay anigana caawinayo laamiga aan ugu ilaalinayo madaxeedii oo dhabteedii saaran tahay markaas ninkii la boobsiyaan arkaan mar xitaa jaanis waa liisii waa ninkii wajigiisa xitaa in arag buuq in lagu furay deetana askartii ay maatay ninkii waa la qabto waa la xiray gabadhina ambulance la saaray booliiska raacay anigana dhalinyarada Turkishta markaas meesha joogeen madaxa ii salaaxeen oo iraali geliyeen ilaa laankitii ala yaabana والحمد منكاس يا على يا وبكره عادي يا جور أنا وتحسب يلا يا بنيبه إذا كان عندك قصة يرتع داورة محاي ولا يا بنولا ورا واحد عمق الجري أصحابنا فلم شركوا متى ما ده يا